meel adag ayuu ka istaagay. puntland iyo jubbaland ba si hogaamintooda ama hogaanka sare ee labadaasi maamul meel adag bay ka istaageen, iyo weliba qaar ka mid a mucaaradka markaasi u tartamaya kursiga madaxweynaha ee dowladda federaalka. dhinaca kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa caawa casuumaad mahad celina u sameeyey xildhibaanadii labadii gole ee maalmihii ugu dambeeyey ku howlanaa dhammaystirka iyo weliba ansixinta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. xeebta ayay lagu qaatay damaashaad iyo sidoo kaleeto farxadda guusha weyn ee ay gaadheen ee ay ka dhabeeyeen hadafkoodii siyaasadeed ee sanadihii ugu dambeeyey hadalhayntiisu ay taagnayd. bal iyadana casuumaadda iyo wixii ka soo baxay waynu eegi doonaa. dhanka kale ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa soomaaliya James Swan, soomaalidu way taqaanaaye, ayaa la shaaciyey in qaramada midoobay ay bedeshay islamarkaana loo bedelay dalka jamhuuriyadda dimuqraatiga Congo. haddaba James Swan bedelaadiisu maxay uga dhigan tahay mucaaradka dhanka dowladda? yaa faa'iido ku qabay? yaa isku halaynayey? yaa xidhiidh ay lalahaayeen? ayadana waan idin wadaa, waa dul istaagi doonaa. soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. way aan ku bilaabe guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo faraxsan ayaa caawa ku dhawaaqay in la dhammaystiray, la ansixiyey, dalku uu yeeshay dastuur cusub. laga bilaabo caawana dastuurka cusub lagu dhaqmi doono. kii 12 waa la tuuray. mucaaradow ama ku dheganaada ama haysta ama ku adkaysta ama meel idinka ayni yaallo, waan turnay buu yidhi kaala tur. xildhibaanada ansixiyey ee maalmihii ugu dambeeyey waxa weeye ku howlanaana ee xildhibaanada baarlamaanka 11aadna aad bay u mahadsan yihiin buu yidhi. qorshihii waxa weeye shacabkeena soomaaliyeed waxaan u dhaaranay waa ka dhamaysteen. fasax aada buu yidhi, horta fasax dheer baan ina siinaynaaye soo raaxaysta buu yidhi, soo raaxaysta. kuwa mucaaradka Sheekh Aadan Madoobe fariin buu diro, wuxuu yidhi guusha xildhibaanada 11aad baarlamaanka 11aad ay gaadheen qayb baad ka tihiin. guusha waad gaadheen idinkane. kala fadhiga dambe ee fasaxaas, marka fasaxa la aaday idinkana aadaadaan, idin kadib markaa soo noqotaan imaada buu yidhi. imaada, hal qof iyuusan inaga dhinaanin. xeerar kaleeto oo dawli ah ayaan dhammaynaynaa buu yidhi, oo dhammaystiraynaaye soo laabta buu yidhi. soo laabta markaad fasaxayna aada soo dhammaysataan. waxaa intaas sii dheer Sheekh Aadan Madoobe 2 qodob oo kale ayaa ku jira khudbadiisa. waa mide qofkii ka hor imaada waa qaran diid, waa midnimo diid, waa dowlad diid, waa horumar diidka soomaaliyeed. qofkii ka hor imaada buu yidhi dastuurkan cusub, qofkii ka hor imaada waa qodob. waa qodobka labaade waa mudaxileedka hay-adaha dawliga iyo weliba baarlamaankaba. midkan hadda wuxuu qorayo ayay ku soconayaan, ay ku dhaqmayaan. dad baa waxay u turjumteen 4 sano 5 sano ay sii joogi doonaan baarlamaanka. ma aha sidaa sheekadu sidaa ma aha. dastuurkan cusub waxaa ku qoran 5 sano oo dhammaystiran. waagii hore kii hore kumeelgaarka 4 sano ayaa ku qornayd in madaxweynuhu 4 sano uu xilka haayo, oo xukuumaddu 4 sano ayay waqti mudaxileedkeedu ahayd. xasan midda lagu soo doortay ee dastuurka kumeelgaarka 4 sano wey mudaxileedkiisa, 2 bilood baa u dhiman. laakiin midkan cusub waa 5 sano oo dhammaystiran. horta sidaa waa inaad u ogaataan. 5 sano maxaa u dhiman marka? 1 sano iyo 2 bilood baa u dhiman. intaasay baarlamaanku sii joogi doonaan, hay-adaha dowladdana sii joogi doonaan. xasanna uu siinayaa dastuurkan hadda wax laga bedelay ee la ansixiyey. madaxweyne xasan iyo hay-adihiisa xukuumaddiisaba 1 sana yuu siinayaa usii dhiman, iyo weliba 2 bilood. 14 bilood baa u dhiman. wixii kale uu ku darsanayo oo markaa ku darsiya waa baab kale. intaa marka u dhiman ayuu rabaa inuu kaga shaqeeyo hanaanka doorashooyinka heer federaal, heer maamul goboleed ee markaasi uu rabo dalka inuu ka qabto. taa iyaduna horta balqabsada. haddii halkaasna uu dhammaysto, 1 sano kalena uu ku darsado, deni oo shacaba oo doorashadii puntland ay qabsoontay oo meelaha taagtaagan, ilaan isagu ma tartami karee, waa 2 jeer ee puntland hadduusan dastuurka bedeline ayay masraxa siyaasadda iskugu imaanayaan oo si fiican isku rifayaan. Axmed Madoobe isagu hadatiisu waxa weeye waxba ka sheegi mayno, waxay tahay iyadu male
waa nin meel iska haysta oo degmada Kismaayo iska haysta marka dani laakiin sidaas ay noqonaysaa si kasto noqotoba baarlamaankii labada gole ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ansixiyay wax ka bedelka dastuurka ee shalayto ku guuleystay inay soo afjaraan kumeel gaar iyo sidoo kale dastuurkii waxa weeye sanadaha badan qolka ku xidhnaa caawa casuumaad buu sameeyay madaxweyne xasan oo mahadsanidina wadada yaryarna halkaas waa laga jeediyay oo xoogaa kooban oo midka gudoomiyaha u jeediyay uu ka mid yahay ayaa halkaas laga jeediyay madaxweyne xasan oo macawistiisa iyo go'isa qaba iyo ra'iisul wasaare xamse iyo xukuumadii dhanayd baa ka qayb gashay mahadsanidin buu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay ugu timaaday xildhibaanada labada gole caawa damaashaad baa ka dhacay layd iftiina oo weliba carfaya ayaa u shidan inta isku siyaasadda ee la siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradku afkiibaa juuqba galay waxaan qoraal ahayn oo ka soo baxaya ma jiro waxay leeyihiin ujeedadii ugu weyneyd eed wax u bedelayseenba waxay ahayd halkaasan ee ku darsiga maanta Puntland oo hadashay oo ninkii farolaha madaxweyne hore Puntland oo xildhibaanadii Puntland ee garoonkan baan ku xidhibanahay waana la weeraray lahaa oo garowe ka dagay soo dhaweeyeen wuxuu yiri anagu dastuurkii ku meel gaarka ahay hore un baa dastuur noo farol saas weey ma garanayna waxaan qorateen yaali mayna buu yiri farol waa oday weyn oo Soomaaliyeed waxaan isaga intuu qoray baa lagu raacay oo Soomaaliya oo dhan ku raacday kan madaxweynihii qaranka iyo xukuumadii dhanayd iyo baarlamaanka isaga matalaya qayb kamid ah ay ka soo shaqeeyeen muxuu ku diidaya waa arrimaha la yaab kale way si kasoo noqotoba hadda geli mayno kana fiican laakiin waa lagu kala baxay wax ka bedelkii dastuurka xamarna waxaa u shidan madaxweyne xasan iyo xulufadiisa waxaa u shidan layd carfaya ayaa u shidan guul weyn ayayna u arkaan inay soo hoyeen oo dalka Soomaaliyeed ay u soo hoyeen by the way anaga naftirkeena iyo shacabka Soomaaliyeed ba markii la qiimeeyo la fiiriyo dastuurka dadka Soomaaliyeed in loo dhameystiro oo shuruucda sharciyadeed ay dadkeena Soomaaliyeed u dhameystirnaadaan waa muhiim arrin xun maaha waa arrin wanaagsan waa arrin run ahaantii guul weyn oo talaabo hal taako madaxweynuhu hadduu qaado hambalyo in la yiraahdo mudaya laakiin kuwan hadda iyagu ku dhagan waxay u arkaan inuu ka dhamaaday jaaniskii siyaasadeed ee ay ku soo gali lahaayeen bay meeshan ka dhaxarkaan in la sii fadhiyo dastuurkii 12 uu halka ugu xidhnaado marka danahooda kaliya ay rabaan mooyeen dan shacab uma socdaan waa in dadkeena Soomaaliyeed ay sida u ogaadaan anigu markaan sayna leeyahay xasan la siyaasad mi laakiin dadkeena Soomaaliyeed horumarkooda iyo talaabooyinka u wanaagsan waxa u fiican baan anigu mar walba garab taagan sababtoo ah dastuurkan waxaa ku qoran doorasho qof iyo coda dadkeenana waxaa xalwa doorasho qof iyo coda 5 degmo oo kaliya ka qabsanta darabto iska badaa degmooyinka faraha badan ee guddiga doorashooyinka ay soo qoreen 5 warbaydhaba kaliya hadii doorasho qof iyo coda laga qabto lagu guuleysto dadkeena Soomaaliyeed waxay jabiyeen doorasho dadban qof iyo cod baa la aaday